soo dhawaada barnaamijka xogta ganacsiga oo aanu maanta ku eegi doono mowduuc ku saabsan sharikada wadaag oo markaasi u qaybsanta laba qaybood qaybta caymiska iyo sidoo kale qaybta maalgelinta. wuxuu yahay caymisku aqoon inteen leeg ayaa Soomaalidu markaasi ay u leeyihiin faa'iidooyinkiisu maxay yihiin. sharikada wadaag qaybteeda kale ee maalgashiga oo markaasi iyadana haysa fursado waaweyn oo dhalinyaradu markaasi ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay in dhalinyarada hayntooda ay yar tahay markaasi ay ku maalgashan karaan lacag ka yar $200 arrintaasi oo faahfaahinteedana aad ku daawan doontaan barnaamijkan xogta ganacsiga ee telefishinka MMTV. ganacsiga waa nooca ganacsi ku dhisan in bulshada la hormariyo oo inanka dhalinyarada kor loo soo qaado oo jeebkiisu wanaagsanaado oo noloshiisii wax anfacaya awoodooda lagu sameeyo haddii guryo loo dhisi karo haddii shaqo loo abuuri karo haddii maartay share la siin karo awoodoodii maaha charity marka waa model adduunka ka jira oo inaga aad inama soo gaarin laakiin social businessku wax dad badan ay yihiin daawanaya garanayaan wax badan laga qoray tusaale waxa loo soo qaataa ninka Maxamed Yunus leeyahay ee Bangladesh ka ah